Muddadii burburka Soomaaliya waxaa soo gaaray dib u dhac xooggan oo waxaa hoos u dhacay wax soo saarkii iyo dhoofintii mooska. Muddadaasi, adduunyadu horumar weyn ayaa laga gaaray dhanka teknoolojiyadda beeraha, gaar ahaan tacabka mooska. Horumarkaas oo aan intiisa badan soo gaarin kana faa'iideysan beeraleyda Soomaaliyeed. Sanadkii 2017, mashruuca GEL oo kaashanaya Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa 20 beeraley Soomaaliyeed ah tababar ugu qaaday dalka Costa Rica oo ay ku soo baranayeen farsamooyinka casriga ah ee tacabka mooska, laga bilaabo abuurka, marxaladda kobcinta iyo daryeelka, soo goynta, kaydinta iyo farsamooyin kale oo la xiriira soo saaridda moos badqaba, tayo sarena leh. Arrintan ayaa qayb ka ah dadaallo uu wado mashruuca GEL oo lagu nooleynayo tayadii mooska Soomaaliya si mar kale loogu dhoofiyo suuqyada caalamka. 2019, beeraleyda oo dhaqan galinaya aqoonta Costa Rica ayaa u jihaystay soo saaridda moos buuxin kara halbeegyada caalamiga ah si loogu dhoofiyo adduunka. Bilihii November iyo December ayay suuro gashay in dekedda Muqdisho si tijaabo ah looga dhoofiyo shixnadii koowaad ee mooska oo loo dhoofiyay dalalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Turkiga, kadib sanado badan oo uu hakad ku jiray dhoofinta mooska Soomaaliya. Arrintan waxaa suuro geliyay beeraleyda oo garab dhaqaale iyo taageero farsamo ka helaya mashruuca GEL iyo Wasaaradda Beeraha Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd markii uu howlgalay shaybaarka bacriminta unugyada mooska oo ay hirgelisay shirkadda Filsan oo taageero ka helaysa mashruuca GEL. Shaybaarkan ayaa wax weyn ka bedeli doona hannaankii abuurka iyo weliba tayada iyo tirada mooska Soomaaliya. GEL ayaa sidoo kale shirkadda Somfresh u sameeyay baqaar qaboojiye ah oo lagu kaydiyo mooska. Dhammaan dadaaladan iyo kuwa kale ee uu wado mashruuca GEL ayaa looga gol leeyahay in beeraleyda Soomaaliya lagu gaarsiiyo farsamooyinka casriga ah iyo teknoolojiyadda beeraha ee dunidu gaartay si ay u soo saaraan moos loo iibgeyn karo suuqyada caalamka.